halgan dheer iyo waxa uu galay jihaad Ilaahay dartiis ah. Hooto wax lala gaadaba marnaba gaabiskuma iman. Har duhuriya kolay ku tahay habeen, heegan waxa uu istaagay u heelanta diinteena suuban. Halgamaaga aynu ka hadlayna waa Imaam Axmed Gurey oo taariikh dahabi ah xaq u hantiyey. Waa qaybtii 33aad ee taxanaha buugga Futuux al-Xabasha ee mahadhareebka sooyaalka taariikheed qarnigii 16aad ee Geeska Afrika, qarnigii Imaam Axmed Gurey. Haddaba qaybtii hore waxa ay noo maraysay ama ay noo joogtay ayadoo boqorkii xabashida ee lagu magacaabayay Tagle Iyaasus uu qorshaystay inuu muslimiinta ka daba tago isagoo dhinacna ka cabsi qaba inuu dagaal la galo ciidamada muslimiinta. Ciidamadiisana ku yiri halkan hadda aynu joogno ayaan iska fadhiyaynaa ilaa ay muslimiintu ka gaarayaan deegaanka la yiraahdo Dalmayda. Markaas baynu ka daba tagaynaa oo aynu weerari doonaa, kadibna ay ciidamadiisu ku raaceen talada. Halkaas baynu ka sii wadaynaa. Haddaba waxaa jiray 2 nin oo lagu kala magacaabi jiray Cumar iyo Sakar oo iyagu ka mid ahaa ciidamada muslimiinta ee imaamka, kuwaas oo ka ridoomay islaamnimadii ayaga oo ku biiray gaaladii nasaarada ahayd. Waxa ayna u galeen boqorkii xabashida, isagna waa uu soo dhaweeyey. Waxa uuna dhul ka siiyey deegaanka la yiraahdo Sakhra, weliba inay cashuurta ka qaataan ayaa loo fasaxay. Gabdhihii nasaaradana waa ay guursadeen. Muslimiintuna markii ay soo galeen deegaanka Sakhra ayaa waxa ay gacanta ku dhigeen dumarkoodii oo way kaxaysteen. Kadibna kolkii uu Tagle Iyaasus yimiday ayay tala bixintii gaalada iyo malaysigoodii dhageysteen. Kolkaas ayay imaamka u yimaadeen oo ay ku yiraahdeen, alle ayaan uga soo laabanay wixii aan samaynay, waanan ka murugoonaynaa wixii naga dhacay. Hase yeeshee waxay Imaam Axmed Gurey u sheegeen wixii uu ku tashaday Tagle Iyaasus iyo weliba qorshihiisa oo dhan. Markaas buu Imaam Axmed Gureyna 2 nin ku yiri habaqina, dumarkoodiina waa loo celiyey. Intaa kadib imaamku waxa uu 2 nin weydiiyey oo uu ku yiri, war miyay idin ogaadeen inaad anaga noo timaadeen? Waxa ayna ugu jawaabeen, maya, nama aanay ogaan. Markaas buu imaamku ku yiri, haddaba waa si wanaagsan, 2 arrimood baan idinka doonayaa. Waxa ayna ugu jawaabeen, waa si wanaagsan, 2 arrimood maxay kala yihiin, bal noo sheeg. Waxa uuna ku yiri, adigu Sakarow, aniga ayaad ila joogaysaa. Saaxiibka Cumar isagu gaalada ayuu u tagi oo u dhex gali, warkooda iyo xogtooda oo dhan ayuu noo keeni. Wadooyinka aanu mari karno ayuu noo soo eegi, kolba tii ballaaran ee ku habboon socodka ee aan mari karno ayuu noo soo sheegi oo uu noo soo ogaanayaa. Haddii aad sidaas yeeshid, Ilaahay wuu kuu jeer dhaafi. Isaguna marxaba ayuu dhahay. Kadib wasiir Cadli oo ka mid ahaa halyeeyada muslimiinta ayaa waxa uu isagu la fadhiistay ninkii Sakar ahaa. Cumar oo ah ninka sahanka loo dirayna waa uu sii dhaweeyey. Cumar waxa uu socdaba waxa uu dhex galay gaaladii oo muddo 2 maalmood ayuu la joogay oo uu la fadhiyey. Kadib maalinnimadii dambe xilliga milayga salaada casar ayuu ku soo laabtay muslimiintii, gaar ahaan waxa uu yimiday wasiir Cadli. Wasiir Cadlina waxa uu u geeyey imaamkii oo ka waransiiyey. Waxa uuna ku yiri, waan u galay, waan arkay, jidka loo mari karana waan gartay. Kadib Imaam Axmed Gurey baa ku yiri, oo maxay noogu tashanayeen, qorshahoodiisu muxuu ahaa, bal nooga waran. Kolkaas ayuu ku yiri, taladii hore mid aan ahayn ma hayaan. Imaamkii baa yiri, waa imisa tiradoodu? Markaas buu ku yiri oo ugu jawaabay, reer Baali, reer Dawaaro, reer Wanaagamba iyo reer Wanaagadab, dhammaantood dhulkoodii bay ku noqdeen. Maalintii deegaanka Andoonkiya ay ku jabeenba cid aan madaxdooda ahayn maynan hadhin. Kolkaas buu imaamku ku yiri, ciidamadaas ma noo sheegi kartaa iyo cid ay ahaayeen iyo weliba tiradooda? Waxa uu ku yiri, waa reer Tigray iyo reer Angoot iyo weliba reer Fadagaar. Imaamka oo sii wata weydiimihiisa ayaa ku yiri, ilaa imisa ayay ahaayeen fardahoodu? Waxa uu ugu jawaabay,
500 bay ahaayeen oo fardo carbeed ah oo ay wataan reer Tigray. Dhammaantoodna waxa ay huwan yihiin ama ay ku gaashaaman yihiin oo ay xidhan yihiin qalab xadiid bir ah. Imaamkii baa mar kale weydiiyey oo ku yidhi, meesha ay joogaan ma ciriiri baa mise waa meel faalal ah? Farduhu ma ku dagaalami karaan mise waa maya? Kolkaas buu ugu jawaabay oo uu yidhi, halkan baynu ka socon doonaa oo meel ku dhow oo dhul ballaaran ah ayaynu degaynaa. Intaa dabadeedna dhankooga iyo goob la yidhaahdo Kadar oo u dhow ayaan u kacaynaa. Inta aan Kadarta fuulno ayaan dooxa degaynaa. Gaaladuna dooxa dushiisa tuur yar oo halkaas ah ayay hoos joogaan. Hase yeeshee tuurtu way go'an tahay, hoosteedana dhul haadaan ah ayaa ku yaalla. Haddaba kolka aynu gaadhno ee Ilaahay nagu simo guusha, heli maayaan jid ay ka baxaan. Mid kasta oo tuurta ka soo dhacaana haadaanta ayuu ku hooban doonaa oo weliba jajabi doonaa. Kadib Imaam Axmed Gurey ayaa goor casar ah isugu yeedhay dagaalyahanadii muslimiinta oo u warramay xogtii ay siiyeen jaajuusiinta iyo nimankii uu dirsaday. Markaas bay barkood yidhaahdeen, halka iyaga ayaan fadhiyaynaa ilaa ay iyagu noo imaanayaan ama ayna soo weerarayaan, ee innagu marnaba kuma duulayno. Halka barkii kale ay yidhaahdeen, maya, innaga ayaa ku duulayna oo weerarayna. Imaam Axmed Gurey baa hadlay isagoo u jawaabaya kuwii hore, waxa uuna yidhi, taladaasi tu aan idinla qabo ma aha, ee kolka aan salaada maqrib tukanno ayaan dhaqaaqaynaa. Markaas bay dhammaantood yidhaahdeen guddoonnay iyo marxaba. Haddaba markii ay taladaas isla qaateen ayaa ciidamadii muslimiinta oo diyaar ah xilliga maqribka kadib ay dhaqaaqeen. Xaruntiina halkeedii Candoora ayuu ku daayey, oo Cabdinaasir iyo 40 dagaalyahan oo fardoolay ah ayaa lagaga sii tegay xarunta, iyo sahaydoodii iyo madaafiicdoodii iyo wax kastee ay u dhammaystiran yihiin. Waxa uuna ku yidhi, adigu aroorta naga daba kaalay insha Allah. Haddaba imaamka iyo askartiisii maqribkii ilaa xilliga hiraabta ayay socdeen, ayagoo aad moodo inay yihiin daad qulqulaya. Ninkii Fiqi Abuubakar ee ku magac dheeraa Arshoone ayaa bartanka ugu jiray ciidamada muslimiinta isagoo akhrinaya Qur'aanka Kariimka. Dhammaan ciidamada muslimiinta oo hareer joogana ay dhagaysanayaan Qur'aanka iyo luuqdiisa macaan oo ku akhrinayo kalaamka Ilaahay ilaa inta laga gaarayay milayga hiraabta. Kolkaas ayay soo gaadheen Kadartii. Kadib waxaa istaagay oo joogsaday ninkii garwadeenka ahaa. Waxa uuna yidhi, hadda waan u dhownahay ee halkan ayaynu u hooyanaynaa ilaa inta waagu baryayo. Waa hagaag, haddii aad halkan nala soo gaadhay, la soco qaybta 34 ee taxanaha buugga Futuux al-Xabasha ee mahadhareebka sooyaalka taariikheed qarnigii 16aad ee Geeska Afrika. Waa anigoo ah wariye Jabarti Yaxyo oo idin leh, nala qaybso wixii fiiradaada, talo iyo falcelin ah. Sidoo kale haddii ay jiraan erayo kugu cusub ama aad fahmi weyday, hoos noogu reeb si aan kugu fasirno. Mahadsanid.